waxaan sidaas ahaadaba oo ku noolaado lacagta xaabada maalinkii dambe aniga oo duurka ka imi ayaan arkay geed weyn markaasaan go'aansaday inaan maanta geedkan googooyo waxaan soo qaatay faashkaygii waxaanan ku garaacay geedkii markaan cabaar garaacayay ayaa markii dambe faashkii waxa uu ku dhacay wax sidii maartii u samaysan oo geedka dhexdiisa ku yaalla geedkuna waxa uu ahaa mid weyn markaasaan sii fiiriyey mise waaba albaab waan furay waxaana ii soo baxday jaranjaro geedka hoostiisa ku aadan jaranjaradii ayaan hoos ugu sii degay layaabku waxa uu ahaa inuu meesha kaba dhisan yahay guri weyn oo qasri ah waan galay markaas ayaa waxaan arkay gabadh aad u qurux badan quruxdeeda darteedna murugo kasta oo ku haysa marka aad aragto aad ilaawayso markaan arkay ayaan sujuud la dhacay anigoo u mahad celiyey ilaahay gabadhan sida quruxda badan u abuuray markay aragtay gabadhii ayay igu tidhi ma jinni ayaa tahay mise insi waxaan ku yidhi waxaan ahay insi markaas ayay igu tidhi oo haddaa yaa ku keenay meeshan aan keligay deganaa muddada dheer muddadaas oo wax insaan ah aanan ku arkin waxaan ku yidhi halkan alla ayaa i keenay waxaan laga yaabaa murugada iyo rafaadkan ku jiro in alla iga qaado waxaan uga warramay qisadii soo qabsatay markaas ayay aad iila murugootay waxayna ii sheegtay in iyaduna xaalkeedu uusan fiicnayn waxayna igu tidhi anigu waxaan ahay gabadh ina boqorad ah wuxuuna aabbahay igu daray in adeerkay balse intaanan aqal gelin waxa i soo afduubtay cifriid la yidhaahdo jarjiis binu raajuus binu ibliis waxa uuna i keenay halkanaad u jeeddo isaga oo sidoo kalena ii keenay wax kasta oo aan u baahanahay 10kii habeenba hal habeen ayuu ii yimaadaa isagoo isu soo ekaysiiya muuqaal nin cajam ah wuxuuna ii sheegay in haddii aan wax u baahdo aan qubbadaas yar ee halkaas taalla taabto mar kasta oo aan taabtana anigoon xitaa gacanta ka qaadin ayuu markiiba ii yimaadaa hadda isagu wuxuu iga sii maqan yahay 4 maalmood wuxuuna ii iman doonaa 6 maalmood kadib ka waran haddii aad ila joogto muddo 5 maalmood ah maalinta uu iman doonana maalinta ka horraysa aad iga tagto qof insi ah oo la sheekaysto ayaan u xiisooday markaas ayaan ka oggolaaday kadibna way ii waday waxayna ii keentay dhar qurux badan waxayna igu ishaartay inaan soo qubaysto oo dharkana soo xidho markaan sidii yeelay ayay ii keentay cunto iyo cabitaan macaan halkii ayaanan ku casheeyey kadib ayayna igu tidhi xogaa yar naso oo seexo waa daalan tahaye markaas ayaan u mahad celiyey oo aan seexday anigoo iskaba ilaaway dhibkii ii haystay xogaa kadib markii aan soo kacay waxaan arkay iyadoo ay kor fadhido oo lugahana ii duugaysa markaas ayay igu tidhi waxaa mahad iska leh ilaahay halkan ku keenay wallaahi baan ku dhaartay noloshaydii ciil ayay isku beddeshay tan iyo markii aan halkan maxbuus lagaga dhigay waxayna tidhisay tix calaacal ah oo ay kaga xawarramayso dhibta haysata markaan maqlay gabigii gabadha ayaaba sii jeclaaday jacayl dhab ah halkii ayaanan kula sheekaystay waxaana la qaatay habeen aanan weligii ilaawi doonin markaasaan ku idhi soo bax oo ina keen halkan aan kaa kaxeeye gabadhii markay hadalkayga maqashay way igu qosashay waxayna igu tidhi iimaan yeelo niyow cifriidkani 10kii habeenba hal habeen ayuu ii yimaadaa inta kalena adiga iska leh ee isdeji markaas ayaan ku idhi uma dulqaadan karo sidan qubbadaas gambalaalka ahna waan garaacayaa markii uu jinku yimaadana kurka ayaan ka goynayaa waana soo qabtay qubbadii yarayd markaasaan garaacay markii aan gambalaalkii garaacay ee gabadhii inta ay isku naxday ay igu tidhi maxaad samaysay miyaanan kuga odhanin ha garaacin hadda cifriidkii wuu soo socdaaye dhuumo intuusan ku dilin dhib culus ee inoo soo jiiday kolkaas ayuu dhulkii kala dilaacay intaan naxay ayaan dharkii albaabka u cararay cabsi darteedna waxaan ka soo cararay faashkaygii iyo kab aan lahaa markuu cifriidkii yimi ayuu gabadhii ku yidhi maxaa darnaa ood iigu wacday waxayna tidhi wax kale ma jiraane xoogaa caajis ayaan dareemay iyo oon daran waxaan rabay biyo qabow oo aan caajiska iskaga biyo kolkaas ayuu jinnigii arkay kabtii iyo faashkii gabadhii ayuu weydiiyey oo ku yidhi agabkani waa mid insiga u gaar ahe maxaa halkan keenay mise gadaasheeda ayaad si qarsoodi ah dad insi ah ula kulantaa markaas ayay gabadhii tidhi maanta ka hor mabaan arkin waxaase laga yaabaa markaad soo gelaysay ee dhulku kala jeexmay inuu adiga ku soo raacay oo kula socday balse jinnigii middaas kumuu qancin gabadhiina wuxuu ku xidhay tiir meesha ku yaallay markaasuu aad u garaacay balse waxba uma ay sheegin aniga oo naxsan aadna uga shallaynaya arrinka aan sameeyey ayaan imi gurigii cabbaar markaan joogay ayaa waxaa ii soo galay harqaanlihii oo igu yidhi waxaa bannaanka jooga nin cajam ah oo faashkaagii iyo kabtaadiiba wada markaas ayaan soo baxay mise waa cifriidkii oo ku dhaartay inuu keeni doono qofkii lahaa faashkaas iyo kabtaas markuu ii arkay ayuu intuu cifriid isku beddelay dhulka ila galay ilaa uu ii geeyey gabadhii oo sidii tiirkii ugu xidhan markaas ayuu gabadhii ku yidhi ninkan ma taqaanid miyaa waxay tidhi weligay maanta ka hor maan arkin intuu seef dheer u dhiibay ayuu ku yidhi hadday sidaas tahay qabso seeftan oo kurka ka goo kolkaas ayay gabadhii tidhi qof insaan ah oo aan wax dembi ah geysanin sidaan qoorta uga gooyaa kadib ayuu aniga ii soo jeestay wuxuuna igu yidhi adigu gabadhan miyaad taqaanaa waxaan ku idhi maya inta uu seeftii ii dhiibay ayuu igu yidhi haddii aanad gabadhan aqoonin seeftan qabso oo kurka ka goo mana ku dili doono kolkaas ayaan ku idhi haddii iyadoo gabadh ah ay garatay qiimaha insaanku leeyahay maxaa ii diiday inaan garto anigoo nin raga ah markaas ayuu seeftii qaatay oo gabadhii gacanta midig ka gooyey kadibna gacanta bidix kadibna lugta midig kadibna lugta bidix
wuxuuna igu yidhi sidaas ayaan ku abaalmariyaa gabadha khiyaanta adiga soo ma ahan waxaan kugu samayn doonaa wax dilka kaaga daran inta uu isixray ayuu ii beddelay daanyeer kadibna dhul hawd ah ayuu igu tuuray waxaan hawdkii ku jiraba aniga oo ka xun wixii gabadha ku dhacay dhibkan isoo maray iyo sida hadda xaalkaygu yahayba ayaan maalinkii dambe ku soo dhacay meel xeeb ah mise waa markab safar ahba markaas ayaan si qarsoodi ah markabkii ku soo fuulay muddo kadib waxa ay arkay nimankii markabka lahaa waxayna isweydiiyeen sidaan markabkan u soo raacay mid ka mid a ayaa yidhi aynu badda iskaga tuurno xayawaankan intuusan dhib inoo keenin markaan hadalkooda maqlay ayaan koodii aan islahaa wuu ugu sarreeyaa hoosta ka galay markuu ii arkay ayuu ii beerjiraacay wuxuuna ku yidhi faraha ha laga qaado daanyeerkan aniga ayuu magan ii yahay wixii markaa ka dambeeyey ninkaas kama aanan fogaan jirin wax kasta oo u baahan yahayna waan u keeni jiray aad ayuuna ii jeclaaday waxaannu soo soconnaba oo safar ahaannaba markii dambe waxaa nagu kacday duufaan aad u xoog badan waxaanan u jihaysannay dhankii xeebta si aannu isu badbaadinno markaannu xeebtii tagnay ayaa waxaa noo yimi ciidan ka socda boqorkii magaaladaas u talin jiray waxayna ahayd magaalo cilmiga aad looga jeclaa dadkeeduna waxay u badnaayeen dad culimo ah markaas ayay noo keeneen waraaqo iyaga oo yidhi boqorku wuu idinsoo salaamaya wuxuuna idiin soo dhiibay warqadahan qof kastana fartiisa iyo wuxuu yaqaanno ha ku soo qoro qofkii ugu farqurxoonaada boqorka ayaa abaal marin doona markaas ayaan warqadihii la qaybinayay dhinac ka galay laakiin waa la ii diiday balse hal warqad ayaan dafay kolkaas ayaa askartii damacnay inay dilaan iyaga oo mooday inaan warqadda jeexjeexi doono ninkii markabka ka mas-uulka ahaa ayaa ku yidhi daaya bal aynu eegno waxa uu warqadda ku sameeye weligay maan arkin daanyeerkan mid ka maskax badane markay shakadu halkaa maraysay ayay shahrazaad dareentay in subaxii la gaadhay markaas ayay intay aamustay ay joojisay hadalkii u bannaanaa